agaasimo waaxyada madax qaybeedyada iyo shaqaale weynaha waaxyaha kastamyada shaqaalaha iyo cashuuraha bariga ee wasaaradda horumarinta maaliyadda Soomaaliland waran waxa halkaasi ka hadlay isla markaasina tababarkaasi furay agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta maaliyadda Soomaaliland Maxamed Cabdi Gurxan waxaanu ka qaybgalayaasha tababarkaasi ku dardaarmay inay muddada uu tababarku u socdo ay ka faa'iideystaan waxaanu agaasimo waaxyada kasta iyo mas'uul kasta oo hor fadhiya ka codsanaynaa markuu helo qorshaha markuu helo qeexitaanka shaqada markuu helo habka loo qiimeeyo shaqada inaad shaqada ka dhaqaajisaan xafiisyadiina inaad mas'uuliyadda si la bilaabtaan inaana shaqadu ku xidhnaan agaasimo waaxid inaana shaqadu ku xidhnaan agaasimo guud inaana shaqadu ku xidhnaan wasiir ku xidhnaan laakiin shaqadu ay dhaqaaqdo si xilkasnimo ay u dhaqaaqdo bil walbana riboodkeeda qiimeynta aynu kala qaadano casharadu inay waxdiin tarayaan iyo inaanay dee ag marayaan aynu qiimeyno insha Allah marka runtii waqti fiican waqti baad ayaad ka soo jarteen aynu xafiisyada dalka ugu shaqeyn lahayn waxaanu rajaynaynaa insha Allah kulanka inaad maanta kulan qiimo leh oo wadaniyadii ay ku dheehan tahay oo xilkasnimo ay ku dheehan tahay insha Allah inuu inoo noqdo oo dalkeena aynu wax ugu tarno tababarada aynu qaadanayno iyo mas'uuliyad waad ogtihiin oo inta badan dadkiina asxaabtiina wareegta ciidamadeena qaranka mas'uuliyiinteena kala duwan ama ciidamadeena qaranka markaad eegto waa dad ina la mid ah naftiisii ayuu u sadqeeyay inuu frontka hore fadhiyo isagoo caruurtiisa aan waxbarasho u helayn hagaagsan manfaca aynu siin aynu ognahay haddana sacrifice uu ku joogaa inuu xuduudda dhiigiisa u huro oo uu qarankeena qiimo u yeelo adigu maanta haddaba adigu aqoon-yahankiiya oo xafiis qalabaysan oo wax walba lagu diyaariyey oo gurigaagii jooga oo xaafadiinii jooga baa qaranka lagaaga baryayaa amba aanu kaaga codsanaynaa inaad waqtigaaga maskaxdaada dadaalkaaga daacadnimadaada aad u hurto si aynu kor ugu qaadno dalkeena horumarna u gaarsiino wadamada waxa halkaasi ka hadlay agaasimaha waaxda xuduudda shaqaalaha ee wasaaradda horumarinta maaliyadda Soomaaliland Maxamed Axmed Weerax wuxuuna ka warramay tababarka iyo muhiimadda uu yeelan doono shaqaale weynaha wasaaradda horumarinta maaliyadda Soomaaliland